وحسن علي خير مدحوينها مستقبل كله قبل مدحوينه yahay leeyahay ma dalka shaqeeyo cid kale ma shaqeysay dawladda Sayid Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midaaye oo madaxweynaha ka yahay waxaan ka aqbalay inaan raali gelisiyo ra'iisul wasaaraha laakiin marnaba farmaajo uu fadhiistay wax raali gelinayada ka bixin maayo hadalka aan doonayay inaan ka bixiyo raali gelinta muxuu yahay bal hadda inuu tusay waa kan ay leeyahay Xasan Ali Khayre farmaajo uu fadhiistay farmaajo uu fadhiistay uu kici waayay intiina ay daawanaysay hadalna waxaan ku idhi sida aad maqlayseen madaxweynaha hadalna waxaan ku idhi ra'iisul wasaaraha ka aan ra'iisul wasaaraha ku idhi ayaan raali gelin buuxda ka bixinaya maadaama aan hoos taaganahay sawirkii madaxweynaha mustaqbalka dhow iyo madaxweynaha eegaba ee federaalka Xasan Ali Khayre waxaan doonayaa maanta oo ay bishu tahay 19 waa bishii September 2019 inaan raali gelin buuxda ka bixiyo hadal xoogaa la igu qoonsaday oo maalintii mudaharaadka aan ku idhi Xasan Ali Khayre raali gelin buuxdaan ka bixinayaa midna waan idin sheegayaa dhammaan dadka ay daawanaya ma dhageysanaya iyo mas'uuliyiinta villa Soomaaliya iyo cidii maqashaba qofku markuu officially wuxuu sheegay iyo marka la mudaharaadayo waa kala labo mudaharaadka muraayadaha la jajabiyaa dad baa ku dhinta ilaahu wadacalka baabuur baa lagu gubaa taageeraal la gubaa arintu caadi maaha dad baa naftooda ku waayay sad marxaatiigatii hadal aan anigu marka idhi mudaharaadkii haddii la qoonsaday arrintu si doonta ahaatee raali gelin baan ka bixinayaa waa prime minister Xasan Ali Khayre waxaan ku leeyahay nin habar dhashaal ma seegi waay abwaankaagii baan ahay hadalkaas raali halayga laakiin marnaba farmaajo uu fadhiistay wax raali gelinayada ka bixin maayo Xasan Ali Khayrana wuxuu noqday sagaaradii tuuriyada la kulantay buu noqday Soomaalidu way taqaanaa erigaas ama mahmaada sagaaradii tuuriyada la kulantay cadada waxaan u qabay waxay ahayd madaxweynaha federaalka dadkuna ku mudaharaaday haddaba waxa la yiri madax meel ka sareysa oo la salaaxa male haddaba waa taas karti iyo karaamo waa dawladda Sayid Ahmed Maxamed Islaam lafteeda aniga waxay iga codsadeen inaan raali gelin siiyo prime minister cadaadis xoog la saar waxaanay saartay kartiga karaamo oo la yiri hadalka marnaba ra'iisul wasaaraheena raali uga manihin la yira abaan dhiirana waxaan ka codsanaynaa inaad ra'iisul wasaaraha raali gelin siiso arintaas hadaba idin sheegaya raali gelinta aan bixinayo waa culays iga soo fuulay kartiga karaamo iyo reer Jubbaland oo dhan oo prime minister ka jecel waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa lafaadan tuureen hilibka lagama wada dhamaysto Xasan Ali Khayre nabad iyo nolol wax shaqaynaya adiga jira maanta shaqo kale kama socoto dalka adiga shaqeeya oo madaxweynaha oo prime minister oo guddo oo meel walba oo far eeg runtii markaan ku idhaa dad mudaharaadayay oo qowmiyad ah oo buuqayay anagu wax ma aan dilin maalin nafna ma go'in mudaharaadka waan ka qayb qaatay muraayad baan jabiyay lacagteedu waan bixinayaa mali muraayad gurina ma aan jabinin mid gaadhin lama aan jabinin ruuxno lama aan dilin saxaro ul dheer baa la iskaga biyaaba tii Soomaalidu saxaro ul dheer baa la iskaga biyaa hadalka iga dhacay mar hadday ummadii Soomaaliyeed wada saluugtay mar haddii dadkii reer Jubbaland ahaa wada saluugay waa hadalka ra'iisul wasaaraha aan idhi mar hadday dawladdii kartiya karaamo ay saluugtay xiriirna ila soo sameeyeen la igala hadlay arrinta inaan raali gelin ka bixiyo wasoo rajuucay xaalino runtii ana ka weecday xaalino awadaydi raacay xaalino karaysan maaye xaalino